tani waa sababtay Japan u tahay dalka ugu nadiifsan caalamka. Ciyaaryahanadu waxay nadiifiyeen change room-ka ay ku labisayeen markay ciyaartii dhamaatay. Sidoo kale daawadayaashii ciyaarta daawanaya garoonka sida u dhanayga nadiifiyay. Markay Japanisku nadiifiyeen qaybtii ay fadhiyeen, waxay u wareegeen qaybtii Netherland oo ay dhammaan wixii xashiish yeelay ka ururiyeen. Waxa ugu cajiib badan wuxuu noqonayaa markay ciyaarta bilaabmaysa waxay soo qaateen garbage bin. nin kasta wuxuu soo qaaday bac weyn oo marka ciyaartu dhamaato uu xashiiska ku soo ururin doono way ku sii tala galeen Japanisku waxay caan ku yihiin sida la socotaan dad karti badan dadaal badan xilkasa xataa 12 jirkooda uu dhaqmo sida 50 jirka waxa laga sheegay shaqa cajiib badan nin baa wuxuu booqday Japan buu booqday dalxiisa laptop qaali oo watay ayaa wuxuu kaga kacay restaurant qaybta waliba dibadda ayuu kaga kacay ninkii markuu hotelka uu seexanay tagay wuxuu laptopkiisa u naxay wuxuu soo wacay restaurant-gii wuxuu laptop ka tagay fadlan ii qaada waxay ku leedahay waan rawaxnay bas laptopka hada dibadda kaga tagtay iyo dad gudaha kaga tagtay uu yaala haboqonin bari marka soo noqoto halkii baad keenaysaa ninkii subaxnimo markuu soo noqday laptopkiisi oo halkii yaala oo sidoo kala furan oo aan la taaban ayuu soo noqday war wax wanaagsan waa la iska deeda waa la iska bartaa hadii hal qof wax qaban karo maayir mooge ayaa keligii caasibada nadiifin lahaa nin kasto meeshaad marayso warqada taala ka qaad jeebadaada ku rid meesha kugu dhaweey garbage bin yaalo ku rid waa salaamantiin fiidowgan ay soo gaarsiiya nadaafadu waa qayb kamid ah iimaanka diinteena bay noo sheegtay noo qadam muslimahay wa salaam